فضلا سبسكرايب سار هنا إلى inaad gambaleel ka furato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la wadaagi doonaa su-aal ah sideen ku heli karaa hurdo dhaqsi leh ama sideen ku heli karaa hurdo wanaagsan. haddaba waxaan idin soo gudbi doonaa istaraatiijiyooyin dhowr ah kuwaas oo kaa caawi doona inaad hesho hurdo wanaagsan. sidaan u ognahay hurdada waxay naga caawisaa in jirkeena iyo maskaxdeena aad iyo aad u shaqeeyaan. haddaba haddaan ku hormarno lambarka koowaad waa inaad isku dheelitirtaa hurdadaada. in waqti kala duwan la jiiftaa dad badani waxay u naqtay dabeecad in la jiiftaa waqti kala duwan waxay keeni kartaa in dhibaato ku imaato hurdadaada. sababtuna waxay tahay waxaa dhibaato ku imaan kara wax la yihahdo circadian rhythm kaasoo la soo daaya marka jirka diyaar u yahay inuu jiifto iyo in kale. lambarka labaad ka fogow kafeyga. kafeyga wuxuu sababaa soo jeed daran wuxuuna keeni karaa dhibaato dhanka hurdo la-aanta ah. waxaana wanaagsan inaad ka fogaato kafeyga 4 saac kahor inta aadan jiifan. dadka qaar waa u dabeecad inay cabaan kafeyga waqti walbo waxayna keeni kartaa dhibaato dhanka hurdo la-aanta ah. lambarka saddexaad ka fogow qaylada ama buuqa. qaylada ama buuqa wuxuu dhibaato ku keeni karaa inaad si dhaqsi ah ku hesho hurdo wanaagsan wuxuuna hoos u dhigaa tirada hurdo ee la rabo qofka bini'aadamka ah inuu jiifto. lambarka shanaad waa inaad ka fogaataa waxyaabaha electronics ah sida tv-ga, mobilka, taleefanka, sidoo kale iftiinka nalka. isticmaalka waxyaabaha aanu hadda soo sheegnay waxay keeni karaan inay kugu adkaato inaad hurdo. haddii aad isku daydo inaad ka fogaato waxaa waalaha inaad hurdi doonto hurdo wanaagsan. lambarka shanaad iska fogey saacadaada. fiirinta waqtiga waxay dhibaato ku keeni kartaa inay kugu adkaato inaad hurdo hesho. sidaa daraadeed iska dhig ama iska fogey mobilkaaga ama saacadaada markii aad rabtid inaad jiifato. lambarka lixaad jiifo meel heerkulkeeda uu yahay mid aad iyo aad isku dheelitiran. sababtuna waxay tahay micnaheeduna waxa weeyaan ha jiifan meel heerkulkooda uu aad iyo aad u kulul yahay, sidoo kale meel heerkulkeeda aad iyo aad qabow u yahay. sababtoo haddaad jiifto meelahaas waxay keeni kartaa in hurdada aad rabtid inaad hesho ay kugu adkaato. sidaa daraadeed waxaa wanaagsan inaad jiifto meel heerkulkeeda uu wanaagsan yahay. haddaba haddaa ku cusubtahay janaalkeena fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto.